soo dhawaada waad mahadsantihiin garsoorka iyo cid kasta oo wasaaradaha safka hore noo ah oo wada shaqaynta dhow ay naga dhexaysa shaqooyinka dawladdu ay qabato waa inta badan laba nooc mid waa mandate khaas ah oo wasaaradda gooni ah midna waa shuraka oo waxay leeyihiin oo wasaaradaha kale oo cross cutting activities ah marka waxyaabaha ku saabsan arrimaha diinta inta badan waxaan kala shaqeynaa culimada anagoo marayna wasaaradda cadaaladda marka waxyaabaha marka way aan ula shaqeynaynana waxa weeye wax kasta sida Sheekh Cabdullaahi sheegay adduunku waxa la laba xadaaradooda isaya xadaaradda koowaad waa tan islaamka Islam civilization oo xadaaradda islaamka iyo western civilization oo mid reer galbeedka xadaaradda reer galbeedka marka saawtihiin reer galbeedka iyo xulafadooda in badan waxay dadaal ku bixinayaan in xadaaradda iyaga ay wadaan ay hormarto oo ay guuleysatay sifatan islaamka ay hoos u marto iyagoo cabsi ka qaba in hadhowta islaamka koro oo gacanta lagu dhigo oo ayaga waxay wadaan rabitaankoodii isay wax u rabeen inta badan qadka ka saar marka waxyaabaha ugu weyn oo maanta dhibaatooyinka sababana ay ka mid tahay marka waxyaabaha ishayo labadaas xadaaradda ayaa keenaya marar badan in laga fiirsado waxa la sameeyo waayo nin kasta oo dhaqaale bixiya dhaqaalihiisa hadaf ayuu ku leeyahay marka dhaqaalaha ku soo gaaraya adigoo naftirkaaga maadaama iyaga hadaf ka leeyihiin annagana inaan si wanaagsan u isticmaalno mas'uuliyad nala jirto waaye oo habkii aan mara lahaynay iyo nidaamkii inaan aad ugu fiirsano oo waxyaabo inaga danno aan sameeyo markii taa laga soo tegay annaga waxaan nahay Soomaali dadkeena waa boqolkiiba waxa la dhahaa boqol waa muslim maadaama challenge badan iyo waxyaabo warar fara badan oo reer galbeedka isku soo galay marka maadaama dad aan nahay noocaas haddana waxaan nahay dal burburi muddo dheerna burbursanaa oo laga rabo inuu kabto kabashadii marka waxaa jira waxyaabo fara badan oo adduunku uu la xisaabtamay jira ay ugu horeysa inaan dhowrno xuquuqda aadanaha inaan sameeyno sharciyadii lagu dhaqi lahaa sharcigana marka waxa la rabaa markasta waxa la dhahaa sharciga ugu sareeya dalkani waa kitaabka quraanka dastuurka ugu horeeya wax inay ku qornaadaan ka hor imaanaya diinta islaamka oo kitaabka quraanka iyo sunnada lama ogola hadana sharci kasta oo la sameeyo wuxuu u baahan yahay in la waafajiyo principle-kii ama mabaadi'dii asaasiga ah ee diinta islaamka iyo dastuuriga marka anagoo halkaas ka duulayna markasta waxaan xoog saarnaa inaan la shaqeynaa culimada si dhowna ula shaqeyno culimada dhankoodana waxaan rabnaa inaysan u arkin waxaan wasaaradda haweenka wada hadii la dhaha in ummadda laga dhaadhicinayo wax qaldan oo la barayo waxyaabaha idinku yeerayna ama la rabo inaan laga hadlo waxa weeye waa sida wax loo sixi lahaa waxaan doonayn waxa weeye inaan khibradiina ka faa'iideysano waxaan doonayn waxa weeye inaan wax nala saxdaan waxa weeye in wax aan soo wada saarna si wada jir ah dalkani anfaci kara oo uu noqon kara udub dhaxaad inaan soo saarno miska ka hadashay oo culimada inay yihiin udub dhaxaad oo markasta marjac waa xaqiiqo waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa noo sheegay rasuulkiisa in culimadani ay dhaxashay ambiyada waxa laga dhaxlayna culimada waxa lagu tilmaamay inaysan ahayn dhaxal oo dunawi ah uu yahay dhaxal diin ah laga faa'iiday marka marar badan waxa laga yaabaa inaan negative perspective ama dhan oo yani xogaa in laga eego hawlaha wasaaradda ay wada marka horta hadafka dhanka inaan loo eegin waan soo dhaweynayaa dad qaar idinka mid tihiin actually laakiin waa jiraan dad hadafyo noocaas qaba oo waxyaabo qaar oo qariib ah oo in laga hadlo u baahan dad weydiis ku dhahaydeen waxaan maxaa danta halkaas geliyay marka dantana meel kasta ay galaysaa oo loo baahan yahay inaa laga hadlo marka dhabar adeegiina sida dhow wasaaradda ula shaqeynaysaan iyo hawlihii iyo aan wadnay iyo markasta idinka ayaa marjic noo ah marka maadaama aad marjic noo tihiin waxaan doonaynaa mar inaad noo dhaga nuglaataan nala shaqeysaan nasaxda wasaaradda haweenka arrimaha qoyska ee xuquuqul insaanka waxyaabaha xoog ay saaraysa waxaa ka mid ah guddigani maanta halkan lagu kulmayo
in ay nagala shaqeeyaan laba arrimood. tan koowaad oo ah guud ahaan dhowrista xuquuqul aadanaha iyo horumarinta arrimaha haweenka iyo arrimaha qoyska inay si guud noogala shaqeeyaan, tala naga siiyaan meelaha muhiimka ah iyo waxyaabaha loo baahan yahay inay isbeddel lagu sameeyo. wixii markaan anaga miiska keeno aan idinkeena waxa weeye inaad akhrisaan oo si idinkoon yani oo aan ka eegaynin dhanka negative-ka ah, dhanka kale ka eegaya iyo sidii waxaan isu waafajin lahayn horta inaad nagala shaqeysaan. number one waxaan doonayna. tan labaadna aan doonayno inaad nagala shaqeysaan ayadana waxa weeye sharciyada, maadaama dalkii sharciyo u baahan yahay. hay-adihii UN-ka iyo United Nations oo adduunka dhan oo UN-ka ku midoobay nagala rabo waxyaabo tala bixin. hadda waxaa jira tala bixin Soomaaliya la sii dawladda oo waxaa jira reporting Universal Periodic Review oo reporti ama hordhac la gudbiyaa jira 40 sanaba dal kasta dib ayaa loo eegaa oo wixii ka hadlaysan iyo wixii tala bixin oo la siina ayaa la siiyaa. kadib talooyinkii dalka lagu soo celiyaa waa ay soo akhriyaan, wax ballan qaad ay sameeyaan. hadda Soomaaliya waxay ballan qaaday 246 qodob oo ka mid ah arrimaha la rabo inay dib u yagleesho oo ay wax ka qabato la xiriira xuquuqul aadanaha iyo sida wax lagu toosin. marka waxaas oo dhan marka waa holistic responsibility oo dhammaanteen ay saaran tahay mas'uuliyad wadareed inaan dalkii wax ka qabano, dalkii dhisno oo horumarino oo kan dhanka kale wax u wada inaan ansaxna waxyaabaha laga doonayo. marka sharciyadan rabnaa la sameynay مثلا waxaan ka shaqeynay maalin hore dhawaantan sharciga gudniinka waxyeelay gabdhahan kala shaqeynay oo actually wax loo baahan yahay oo culimada door ku lahaayeen oo fadlo aan ka soo saarno level la kala duwanaa marin oo waxyaabaha aan halkan u fadhino kamid. waxaa jira sharciga xadgudubka galmada, waa doogtiin dhibaatooyin fara badan ayaa jira. dhibaatooyinkaas marka kale wax looga hortagi karo waxay noqonayaan in la helo sharci dabaqa qofka dambiilahana gabaad aan siinaynin, diinta islaamkana aan ku xadgudbaynin oo diinta islaamkana raad ku leh oo laga soo dhambalin karaa kutubka marjic way markasta in la sameeyo oo wax lagu heshiyo oo wixina marka lagu heshiyo wixii wax dhaqan kale ay noqdaan oo qofkii dambiilaha ah dambiga galayna gabaad uusan helin oo hawshiina iyo dalkii iyo kabashadiisina wax ka qabanay. waxyaabaha marka inaan sameeyno aan doonayno oo inaan wax ka qabano markasta aan u taaganahay oo idinkana garab aan idinka baahanahay waa labadaas isha. markasta waxa la yaabaa marar badan inaan idin yeerno oo aan idinka hawlo ku jiro aan idin yeerno sida Sheekh Cabdullaahi sheegayo oo qaar jaamacado dad akhriyaan oo qaar hawlo kala duwan leeyihiin oo qaar macallimiin. marka qayb ka mid ah waqtigiina inaad na siisaan oo nagala shaqeysaan arrimahaas oo wax isla saxno oo wada shaqeynaan waxyaabaha aan baahanahay oo aan idinku yeerayna inaan baahi dhab aan idin qabna ay tusaysaa. marka warkayana aad idinku badinin waqtina uu nahayaa. waxaan rabaa marka miski iyo Faarax iyo tiimka idinla joogi doono iyo Sheekh Cabdullaahi oo isaga naftirkiisa culimadana ka mid ah agaasimihii waaxdana oo isaga joogi doono inaan isla gorfeysaan waxyaabaha halkaan aan u joogno oo markastana aan idinka codsanayno oo aan idin ogeysiinayno inaan baahi idin qabno, inaad garab istaagtaan u baahannahay, inaad wax badan nala qabataan aan baahi idin qabno. marka soo dhawaada, waad mahadsantihiin.